waa maxay gelatin? Gelatin waxaa laga sameeyaa collagen oo ay sheegaan inuu yahay borotiin. Waxaa inta badan laga sameeyaa waxyaabo ka yimaada doofaarka. Collagen waxaa laga farsameeyaa haragga, seedaha, unugyada jirka, iyo weliba lafaha iyo dhuuxooda. Inta badan doofaarka iyo lo'da ayaa laga farsameeyaa. Collagen waxaa lagu farsameeyaa warshado si looga dhigo gelatin. Haddaba gelatinka maxaa lagu daraa? Gelatinka waxaa laga sameeyaa jeliga, marshmallow-ga, macmacaanada iyo yogurta iyo waxyaabo badan. Haddaba halkee ayaa loo adeegsadaa? Gelatin waxay ku daraan dhammaan waxyaabaha guriga inoo yaala, laga bilaabo raashinka, daawooyinka aan adeegsano, waxyaabaha sawirada la xiriira, xitaa waraaqaha iyo waxyaabo kale. Gelatin waa waxay aad u adeegsadaan, waa waxaan midab lahayn, ur lahayn, dhadhan lahayn. Waa wax dheefshiidka si fudud u dhaafi kara isla markaana biyaha kulul ugu milmi kara. Haddaba waxaan isku dayi doonaa inaan soo koobno waxyaabaha ay gelatinka ku daraan. Dharka aan xirana qaarkood, gawaarida aan kaxaysana badankood, waxyaabahan u adeegsano inaan isku qurxinno ama waxyaabahan u cabno in nafta ay ku raaxaysato, dhammaantood waxaa ku jira waxyaabo laga farsameeyey doofaarka. Waxyaabahan adeegsano oo dhan waxaa ku jira waxyaabo ka yimaada xoolaha sida lo'da, ariga, kalluunka, digaagga iyo doofaarka. Haddaba waxaan diiradda si toosa u saari doonaa waxyaabo laga farsameeyey doofaarka ama lagu daro dheecaanka doofaarka guud ahaanba. Haddaad aaminsan tahay ama aad horay u rumaysnayd in doofaarka hilibkiisa oo keliya la cuno ee qaybaha kale doofaarka qashinka la isaga daro, ogow runtii waa aad qaldan tahay. Doofaarka qaybihiisa kale sida lafaha, haragga ama maqaarka, timihiisa, unugyada jirka kale sida wadnaha iyo qaybaha kale ee ka soo hara doofaarka waxaa qaata warshadaha wax soo saara, kuwaasi oo dib ugu soo dara raashinka la cuno ama waxyaabaha kale ee la adeegsado. Haddaba barnaamijkan guud ahaan waxaan kaga hadli doonaa insha Allah baaritaan ay samaysay gabar u dhalatay dalka Holland. Gabadhaasi oo lagu magacaabo Christine Mandresma. Gabadhan waa qof farshaxaniiste ah, waxay muddo 3 sano ah dabagal ku haysay waxyaabaha lagu daro ama laga farsameeyo doofaarka, iyada oo ka qortay ama ka diyaarisay buug magaciisu uu yahay PEG 05049. Haddaba aan eegno waxyaabahan adeegsano haddii ay ahaan lahaayeen wax la cuno ama wax la xirto ama waxyaabahan adeegsanaba maxaa laga sameeyaa inta badan. Dhanka kale waxaa iga afeef ah in wax kastoo aan cunno ama aan adeegsano dhammaantood in aysan ku jirin doofaarka dheecaankii, laakiin waxaa xaqiiq ah in inta badan lagu daro dheecaanka ama waxyaabaha ka yimaada doofaarka guud ahaanba. Intaanan barnaamijka gudaha u gelin, waxaa intiisa badan ku maqli doontaan wax lagu magacaabo collagen. Collagen waxay sheegaan waa borotiin, waxaa inta badan maadadaasi laga farsameeyaa haragga ama jirka xoolaha, gaar ahaan doofaarka, faraska, lo'da, kalluunka iyo kuwa kale. Waxaa sidaasi oo kale ku maqli doontaan inta badan gelatin. Gelatin ama gelatinos waa maaddo jilicsan oo u dhaxaysa adka iyo dareere. Waxaa inta badan laga farsameeyaa maadadaasi dheecaanka doofaarka ama lo'da ama kalluunka. Laakiin kuwa laga farsameeyo lo'da ama kalluunka waxaa inta badan lagu qoraa fish gelatin ama beef gelatin. Haddii aad aragto gelatin oo keliya waa doofaar. Haddaba ugu horeyntii aan ka bilaawno haragga ama maqaarka doofaarka waxyaabaha laga farsameeyo. Gacmo-gashiga loo adeegsado howlaha adag sida dhismaha waxaa inta badan Yurub iyo Shiinaha ay ka farsameeyaan haragga ama maqaarka doofaarka. Haddaba ogow, dhammaan gacmo-gashiyada loo yaqaano safety gloves ma ahan haragga doofaarka, laakiin waxaa ku garan kartaa inuu yahay haragga doofaarka ama maqaarka doofaarka. Wuxuu leeyahay dhibco yaryar oo ka soo muuqanaya dusha sare ee gloveska, waana halka tinta ama dhagorta doofaarka laga guray, ama waxaad ka akhrin kartaa qoraalka la socda gloveskaasi. Injectable collagen waa daawo la isku qurxiyo, waxaana loo adeegsadaa waxyaabaha la isku qurxiyo, gaar ahaan haweenka oo aad u adeegsada si wejiga haraggiisa ay u qurxiyaan. Haddaba cirbaddan waxaa ku jira wax lagu magacaabo collagen, sida ay sheegeen waa borotiin ama dheecaan laga sameeyey haragga doofaarka. Waxaase dhici karta mararka qaar in laga farsameeyo xayawaanaad kale sida fardaha ama lo'da, laakiin waxa ugu badan ee laga farsameeyo waa doofaarka haraggiisa. Waxaana adeegsiga daawadan la bilaabay 1976. Energy bar waa shukulaato la cuno ama waxyaabo laga farsameeyey geeda mirood sida looska iyo waxyaabo la mid ah. Waxay sheegaan in tamar ama quwad laga helo. Waxaa inta badan adeegsada dadka biraha qaadqaada. Waxaa ku jira dheecaan ka yimaada haragga doofaarka laguna magacaabo gelatin. Laakiin ogow, dhammaan shukulaatooyinkaasi oo dhan kuma jiraan, iska aqri. Halka shukulaatooyinka qaar ay ku jiraan qamro lagu magacaabo ram. Waxaa mararka qaar ku qornaan karta gelatin
ama waxa loo yaqaano code sida E471 iyo kuwo kale oo badan. fadlan kala soco qoraal ahaan website-keenna www.rdbulxubey.com si aad ugu taxadirto. haddaba haddaan soo koobo waxyaabaha haragga doofaarka dhacaankii lagu daro waxaa ka mid ah xanjada, nacnaca, ice creamka ama jalaatada, cheesecake-ga ama duulshada jiiska lagu daro, sidaasi oo kale cream cheese-ka iyo weliba low fat butterka ama subagga dufinta aan ku badnayn, qamrada, biirka, cabitaanada qaar waxaa ku jira dheecaano ka yimaada haragga doofaarka. laakiin ogow, dhammaan inta aan soo sheegay oo dhan oo aan doofaar ku jirin ayaa jira, iska aqri. Capsule kaniiniga lagu magacaabo capsule nuucu doona ha ahaadee waxaa laga farsameeyaa dufinta ama xeedha laga soo qaaday haragga ama maqaarka doofaarka oo la shiiday. doofaar ma cunin been dheh, shiikh iyo shariifba waa laga dhergay. kaniiniga capsuleka waxa uu ka samaysan yahay gelatin boog. haddaba ogow, waxaa jira kaabsalo aanan ku jirin doofaarka oo lagu magacaabo vegetarian capsules. sidaasi oo kale waxaa xaqiiq ah in kaniiniyada aan cunno badankood laga farsameeyo collagen ama gelatin. sababta ay ugu daraanna waa si uu kaniinka isugu dheganaado muddo dheer. haddaba haddii aad ku nooshahay waddanka UK ama waddamada kale, waxaad xaq u leedahay inaad dhakhtarkaaga weydiiso haddii uu hayo nuucyo kale aysan ku jirin doofaarka. haddaba waxyaabaha doofaarka qaybihiisa kala duwan laga farsameeyo ma soo wada koobi karno, maxaa yeelay waxay gaarayaan ilaa 185 shay. insulin waa daawo loo adeegsado ama loo qaato dadka qaba xanuunka sokorowga ama macaanka. insulinku ma ahan daawo afka laga qaato, waa daawo la isku duro. waxaa daawadan laga sameeyaa beeryaraha doofaarka inta badan. sigaarka qaybtiisa hoose ee loo yaqaano filterka waxaa laga farsameeyaa dhiigga doofaarka. waa sida ay sheegtay gabadha baaritaanka ku samaysay oo lagu magacaabo Christine Mandresma. rootiga ama roodhiga sida uu qof walba u garanayo, inta badan shirkadaha rootiga sameeya waxay ku daraan rootiga borotiin ay sheegeen inay ka soo qaadeen dhogorta ama tinta doofaarka. sababta ay ugu daraan waxay ku sheegeen in cajiinka rootiga laga farsameeyo aad u jilcinayo, waxaana maadadaasi lagu magacaabaa cysteine. haddaba dadka qaar ayaa sheega in maadadaasi laga farsameeyo timaha bini'aadamka. xeerta ama dufinta kale ee doofaarka oo dhan waxaa laga farsameeyaa shaambada, conditionerkeeda, daawada ilkaha, shumaca aan shidano, kareemyada aan marsano iyo waxyaabo kale oo badan. waxaase muhiim ah inaad ogaato dhammaan waxyaabaha aan soo sheegay oo dhan inaysan ku wada jirin doofaarka. waxaase jira shirkado badan oo adeegsada doofaarka dhacaankiisa, gaar ahaan kuwa Jarmalka, Holland, Denmark, UK, Faranse iyo dhammaan waddamada kale Yurub iyo Shiinaha. haddii aad u baahan tahay faahfaahin dheeri ah, kala soco website-keenna oo kaaga soo muuqan doona shaashadda, ama waxaan kuu soo dhigi doonaa linkiga hoose ee YouTube-keenna.